waagii hore dadka Soomaaliyeed waa lala yaabi jiray qofka caatada ah halka qofka ciilan aad loo amaani jiray aragtidaas oo malaha aan ka soo raranay noloshii miyiga maadaama neefka ciilan uu ka qiimo iyo hadalhayn badnaa neefka caatada ah shacbaha aragtidaas waxaa qayb weyn ka ahaa in waagii hore dadku ay quudan jireen cunooyinka wadaniga loo yaqaan sida masagada galeyda salbukada cambuulada qudaarta iyo miraha noocyadeeda kala duwan waxaana lagu noolaa hab nololeed dhab ah dadkuna waxay u badnaayeen muruqmaal iyo lugmaal balse hadda wax waliba way isbedeleen haddii ay ahaan lahayd hab nololeedka iyo wacyiga caafimaadka oo waxaa dadkeena ku batay cayilka iyo cayil weekaha ama caato cayilka dhagaheennana waxay maqlaan su'aalaha kala ah sidee la isku caateeyaa sidee lagu jaraa caloosha iyo sidee lagu dhisaa murqaha muuqaaladeenni hore waxaan xoogga saari jirnay miisaan dhimis calool jaris iyo murqa dhisid laakiin muuqaalkeennan waxaan ugu adeegi doonnaa bulshada qaybteeda kale ee caatada ah amaba macaluusha u dhow waxaa ila soo xidhiiray waalid qarash badan iyo juhdi badan ku bixiyey sidii uu ka cayilin lahaa wiilkooda ku sii dhow 20 jirka wiilkaas oo cabsi badan geliya waalidka xilliyada dabeelaha islamarkaana isagu isla quman maalin walibana taagan xafladaha islamarkaana gelaya sawirro nooc waliba isagoo weliba dhexda xiran dabcan dhibanahaas isku kalsoon ceeb kuma lahan hadduu dhexda xirto maxaa yeelay dad ayaa la dhacsan kana daba tumaya gurbaan iyo sacab iyagoo leh waxaa tahay aabbihii staylka waxaa tahay faashiyoonkii oo qof ah iyo hadallo kale oo malaha qarka tuur ah uleejeeddaduna waa inay jiraan dhibanayaal kale oo la mid ah una baahan in la caawiyo muuqaalkan wuxuu kaa caawin doonaa inaad si qoto dheer u fahanto jawaabta 5 su'aal ee soo socota su'aasha koowaad ee muuqaalkan uu ka jawaabi doono waa maxay caatanimo su'aasha xigta sideen ku ogaan karaa in miisaankaygu ka hooseeyo intii la rabay maxaa sababa caatanimada ama miisaanka hooseeya meeqa kiilo ayay tahay inaad noqoto sida caafimaadku uu qoray sideena ku kordhin karaa miisaanka oo ah su'aasha ugu muhiimsan ee mawduucan aad ka kororsan doonto waayahan caalamka aanu ku noolnahay caatanimadu waxay noqotay wax lagu faano inta culusna ay ku hamiyaan balse haddii qofku sidii la rabay uu miisaankiisu ka hooseeyo waa calaamad culus oo ka tarjumaysa caafimaad darro jirta ama mid ku soo fool leh caato ama macaluul waxaa lagu tilmaami karaa qofkii body mass indexkiisu ka hooseeyo 18.5 waxaana uu qofku ku ogaan karaa BMI-giisa inuu isticmaalo aabiska noocyadooda ugu fudud halbeegaas oo xisaabiya ama isbarbardhiga dhererka culayska iyo canaasir kale sida da'da iyo jinsiga qofka halkaasna uu qofka ugu sheegayo BMI-giisa inta uu yahay waxaa xusid mudan in miisaanka saxan ee qofku u dhaxayn karo 18.5 wixii ka badan ilaa 24.9 BMI-giisu intaa wixii ka sarreeyana uu qofku noqonayo qof miisaan culus islamarkaana caafimaadkiisu qalqal soo wajihi karo dhibaatooyinka caafimaad ee laga dhaxlo macaluusha waxaa ka mid ah nafaqa darro ku dhacda jirka dhiig la'aan difaaca jirka oo daciifo jirka qofka macaluusha ah oo u nugul infectioniska noocyadiisa kala duwan gabdhaha oo si gaar ah u wajaha dhibaatooyin xagga uurqaadista iyo caado wareer iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba maxaa sababa macaluusha si aad dhibaatadan wax uga qabato waa inaad ogaatid wax sababa kadibna aad qaadato talooyinka iyo halka aan halkan kugula wadaagi doono haddaba sababaha waxaa ka mid ah u dhalasho ama dhaxal dadka qaar ayaa jabyarida iyo caatanimada ka dhaxlay waalidkooda ama awowayaashoodii hore dheefshiidka sarreeya ama high metabolismka ayaa ka mid ah sababaha dadka dheefshiidkoodu sarreeyo ayaa jirkoodu wuxuu gubayaa energy dheeraad ah sida aan ka wada warhaynana inuu qofku miisaan kororsado iyo inuu dhimo waa xisaab kala jar ah taa oo dhex marta qofka cuntada uu cunay iyo inta jirkiisu uu gubay xilliyada jimicsiga iyo xilliyada nasashada tusaale waxa kugu filan dhammaanteen waxaanu leenahay saaxiib ama walaal wax waliba cuna miisaanna uusan ku kordhin qofkaas waa qofka la dhaho jirkiisu wuxuu leeyahay wax loo yaqaan high metabolism ama dheefshiidkiisu aad ayuu u sarreeyaa sababaha waxaa ka mid ah jimicsiga iyo cayaaraha saa'idka ah ee u badan kaadiyowga tusaale ahaan qofka maalin waliba ama maalin dhaaf cayaaro kubadda cagta
ama sameeyo cardio ilaa iyo 45 daqiiqo ah wuxuu qofkaas gubayaa calorieska jirkiisa soo gala inteeda badan oo waxaa ku dhacaya caloric deficit waxa loo yaqaan jirkiisuna waxaa ku imaan doona miisaan dhimis xoogan taa oo ka dhigaysa qofka qof macluul ah yacni qofkaan jirkiisa wixii soo gala waa uu gubaa oo jirkiisu ma uu helo kayd u fududeeya inuu sameeyo miisaan koror sababaha waxaa ka mid ah xanuunada jirka ku dhaca qaar ayaa sababi kara in qofka miisaankiisu hoos u dhac ku yimaado sida fuuqbaxa soo noqnoqda macaanka iyo kansarka qaarkiis xanuunada maskaxda ku dhaca qaar ayaa isku dhexyaa culus ku keeni kara badqabka iyo habcunista qofka sida stresska walwalka iyo walbahaarka sidoo kale cunno xumo iyo nafaqo darro ku dhacda jirka qofka ayaa sababi karta tanna waa mid la wada fahmi karo qofka aan cunin inta jirkiisu u baahan yahay dabcan waxaa ku imaanaya miisaan dhimis degdeg ah haddaba waa maxay xalku sidee ayuu qofku ku samayn karaa miisaan kordhin caafimaad ah waxaan kuu sharxi doonaa sida ugu fudud isla markaana ugu sahan ee qofku ku samayn karo miisaan kordhin uusan ka shalay doonin micnaha ma rabno inaad kororsato calool iyo xiir oo haddana 6 bilood kadib aad ku mashquusho sidaad ku samayn lahayd miisaan dhimid iyo xiir jaris haddii aad raacid tallaabooyinkan iyo talooyinkan aan kula wadaagi doono waxaad samayn doontaa miisaan kordhin nadiif ah una badan murqo dhisid xiirtuna aad ugu yar tahay yacni miisaan saafi ah waa in jirkaadu helaa calorieska uu u baahan yahay taa oo ka badan inta uu isticmaalo ama jirka uu gubo adigoo abuuraya waxa loo yaqaan caloric surplus si jirkaadu u bilaabo hawsha miisaan kororka dabcan muuqaaladeennii hore ayaan ku sharaxnay in kalorigu uu yahay halbeeg aan ku cabirno tamarta ama enerjiga aan ka helno raashinka waxaana sidoo kale tilmaannay in celceliska calorieska ee aadanuhu u baahan yahay jirkiisu si uusan u samayn miisaan koror iyo miisaan dhimis intaba ay tahay ilaa iyo 2,000 oo calories iyadoo markii hoos loo sii galo ay aadanuhu ay arrintan ku kala duwan yihiin sababta kala duwanaashahana ay sababi karto jinsiga dhererka culayska iyo da'da qofka tusaale ahaan haddii celceliska baahida calorieska ee aadanuhu ay tahay 2,000 oo calories maalintii balse aan qaadanno ilaa iyo 2,300 maalin waliba 300 ee dheeraadka ah waxay isku tegaysaa ilaa iyo 2,100 calories 7 maalmood kadib waxaana halkaas laga filan karaa ku dhawaad nus kiilo iyo tumin miisaan koror ah 7 kadib haddaba si aad miisaan koror degdeg ah misana caafimaad qaba u samayso waa inaad beegsataa 300 ilaa 500 oo calories dheeraad ah inaad jirkaada siiso maalin waliba anigu waxaan mawduucan u ahay tusaale nool ama tusaalaha koowaad 2009kii dhammaadkiisa waxaan ahay 54 kiilo hadda waa 54 kiilo halka dhererkaygu uu ka ahay mitir 88 waxayna duruuftu i badday inaan jiim bilaabo oo 6 bilood kadib waxaan gaaray 60 kiilo dabcan ma badna balse xilligaas oo aan dabaysha inay qaado halis ugu jiray wax weyn ayay ii ahayd 60 kiilo ee aan kororsaday waxaana taa kuu sii dheer inaan xilligaa aan fikrad aad u yar ka haystay jirdhiska iyo habsamaynta cunnada isu dheelitiran na soo wad oo waxaadna keentaa sanad ka hor Oktoobar 2020 miisaankaygu wuxuu ahaa 87 kiilo safarro kala duwan tajrubooyin xagga miisaan kordhinta oo aan sameeyay iyo coronavirus oo i saameeyay ayaa waxay sababeen inaan gaaro ilaa iyo 94 kiilo muddo 5 bilood ah gudaheed hadda waa 94 kiilo wax yar ma ahan yacni 7 kiilo miisaan koror ah March sanadkan 2021 ayaan bilaabay tajrubo cusub oo miisaan dhimis ah Oktoobar 21 miisaankaygu wuxuu gaaray 81 kiilo waxaana jaray 13 kiilo ujeeddada aan ka leeyahay xaaladaha kala duwan ee miisaankaygu soo maray 12 sano ee la soo dhaafay ee aan u dhaxeeyay 54 ilaa 94 kiilo ayaa ah in miisaan kordhintu ay ku timaado xisaab lana mid tahay hal lagu daray hal ama hal laga jaray hal yacni sidaad rabto ayaad miisaan isugu dari kartaa isagana dhimi kartaa haddii aad waddada saxda ah ee loogu talagalay aad raacdo waxaa xusid mudan in bilaha hore ay muhiim tahay xisaabinta calorieska kadibna aad baran doonto cunto waliba waxa aad ka heli karto oo calories ah iyo waliba calorie waliba waxa uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahayd protein fat ama carbohydrates waa yahay qodobka xiga
si jirkaadu u sameeyo miisaan kordhin u badan muruqo waa inaad jirka siisaa borotiin aad u badan maadaama borotiinku yahay cunsurka ugu muhiimsan marka laga hadlayo murqa dhisidda. haddii kaloriska aan cunayno aysan u badnayn borotiin oo aan murqa dhisid samayn waxa ay u badan doonaan fat carbohydrates. sidaan hordhaca ku soo sheegnayna ma rabno inaan samayno miisaan kordhin nagu qasbi doonta inaan maalin uun ka fakarno sidaan ku samayn lahayn miisaan dhimis. xaddiga borotiin qaadashada gaarsii ilaa iyo 1.8 garaam oo lagu dhuftay inta kiilo ee aad tahay si aad u samayso murqa dhisid iyo miisaan kordhin degdeg ah. xoogga saar cunooyinka borotiinka uu ku badan yahay sida digaagga, malayga, hilibka iyo ukunta. sidoo kale haddii duruufuhu kuu saamaxaan wax weyn ayay kugu soo kordhin doontaa inaad daayadkaada ku darto whey protein oo aad qaadanayso jiimka ka hor iyo kadib. sidoo kale qaado cunooyinka leh faatka iyo carbohydrateska caafimaadka ah ee la mahdiyey sida caanaha, afokaadhada, timirta, tufaaxa, mooska, looska, saliid saytuunka, baradhada iyo bataati macaanka. sidoo kale samey jimicsi iyo biraqaadis yacni jiimka aad oo isoo gub. mar haddii aan daayadkii sahnay qorshaheennu yahay inaan jirka siino cuntada uu u baahan yahay in ka badan si aan u samayno miisaan kordhin waxaa lagama maarmaan ah inaan aadno jiimka oo aan birta calaajino yacni inaan nafta ag dhigno si kaloriska dheeraadka ah ee jirkeenna gala aysan u aadin unugyada kaydka xeerta. haddii si kale aan u dhahno waxaan diidaynaa in miisaan cayil ah jirkeennu uu koro. jiimka ayaana looga baaqsan karaa arrinka. haddii jiim aadowga uu kugu adag yahay ugu yaraan gurigaada ku samey socod, boodbood, push-up ama exercisada kala duwan ee loo yaqaan exercisada jir qaadista ama bodyweight exerciseska. 2 ilaa 4 maalmood samey jiimka iyo biraqaadista. iskuna day inaad xoogaa culayska badsato adigoo taxadiraya. sidoo kale qaladaadka ay dadkeennu sameeyaan waxaa ka mid ah waxaad arkaysaa qof macluul ah oo jiimka markuu yimaado intiisa badan kor saaran mashiinka lagu ordo ama samaynaya cardio taa oo sababaysa in qofku uu gubo kaloris badan kana hor istaagayso miisaan kordhinta iyo murqa dhisidda. walow labadii talo ee ugu muhiimsanaa ee ku saabsanaa daayetka iyo jiimka aan idinla wadaagay haddana farsamooyinkan soo socda balweelay oo ka faa'iidayso si aad u samayso miisaan kordhinta aad ku taamaysid. cunnada ka hor ha cabin biyo maxaa yeelay waxay kaa hor istaagi doontaa cuntada. markaa cuntada cunaysana meesha aad biyo caadi ah ama biyo liin fudud aad ku cuni lahayd ku cun caano ama cabitaan kale oo culus. isku day inaad ugu yaraan aad 5 jeer wax cunto, 3 cunto oo waaweyn iyo 2 ku dhex tuur ah. baro sida loo shiito cabitaanada. isku day in ugu yaraan maalintii aad 2 jeer cabto cabitaano culus oo seeko ah. isku shiido looska, caanaha, mooska, cambaha, babaayga, batiiqa iyo afokaadhada. haddii aad baaquli wax ku cuni jirtay u beddel saxan weyn. galaas haddii aad wax ku cabi jirtayna ku beddelo aargalaan ama garaafe si aad ugu dhiirato inaad wax badan cabto iyo inaad wax badan cunto. taa oo kuu sahli doonto miisaan kordhinta aad ku taamaysid. cunto waliba oo aad cunayso ku darso waxyaabaha cuntada socodsiiya sida basbaaska, mayoneeska, kreemiska iyo kajabka balse ha ka badin. joojina markii miisaankaadu xoogaa uu soo roonaado maadaama aysan caafimaadkaada u fiicnayn. isku day inaad hesho hurdo kugu filan maxaa yeelay inta aad jiifto ayuu jirkaadu samaynayaa murqa dhisid iyo miisaan kordhin. marka cuntada lagu soo hoos dhigo bisin u qabasho kadib ka bilow cunooyinka ugu borotiinka badan. waxa kalena u dambaysii si lacalla haddii ay calooshu kaa buuxsanto si aadan uga tegin cuntada jirkaada u baahan yahay ee borotiinka. ugu dambayntii gunaanadka muuqaalkeennan waxaa weeye dadka qaar ayay dabcan ku adkaan doontaa inay barnaamijkan dabaqaan iyo inay sameeyaan miisaan kordhin balse qofkii la yimaado go'aan iyo karti iyo joogtayn way gaari doonaan hadafkooda miisaan kordhinta haddaysan waddadan ka weecan insha allah. ogsoonow qof waliba waa uu tegi karaa jiimka saacad ka mid ah 24 saac ee aan wada haysanno balse waxaa la isku dhaafay sida qofku wax u cuno, siduu u seexdo iyo habnololeedka guud ee aanu ku nool nahay 23 saac ee soo hartay. sirtana waa adkaysi,
toosnaan iyo joogtayn ku aadan jimicsiga, cunnada iyo jiifka oo dhammaantood ka qayb qaadanaya samaynta miisaan kordhinta nadiifka ah.